waxaanu intaan wada joognay qadka telefonkan ku xiriiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin ka bacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta Jimcaha gaalkacyo inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo waxaa qadka soo galay taliyayaasha ciidamada ayagana amar waa la siiyay in ay xabad joojin la suubiyo waxaan rajeynayaa marka xabad joojintaas ay tahay inay u hirgasho waxaan rajeynayaa gaalkacyo dhibaatada inay dhamaato waxaan rajeynaynaa idinka ilaahay inay dadka gaalkacyood nabad ku naaloodaan dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo waqti xun abaaraha lagu jiraa waxaan u baahannahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan horumarka magaalada laga wada shaqeeyo meeshii dagaal iyo colaad laga shaqayn lahaa Puntland waxaa ka go-an in ay deriskeeda kula noolaato nabadgelyo horumarna ummadda loo horseedo dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin xabad uma baahna maanta 2016 baan maraynaa waxaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore waxaan rajeynayaa dhanka kale in arrintan nala qaataan oo walaalahay ka rajeynaynaa